iyadoo gabi ahaanba si weyn looga diyaar garoobay Somaliland in laga hortago cudurka coronavirus isla markaana laga sameeyay hawlgallo ballaaran oo laga hortagayo xanuunkaasi ayaa madaxweynaha Somaliland waxa uu magacaabay guddi ka hortag guddidaas oo si weyn uga shaqeyn doonta ka hortagga coronavirus waxaana soo saareen amar la xiriira sidii looga badbaadi lahaa cudurkaasi ama looga hortagi lahaa inuu faafo amaradaas oo ay ka mid ahaayeen in la xidho goobaha qaylaada ay dadku isugu yimaadaan iyo sidoo kale makhaayadaha iyo meel walba dadku ay isugu iman karaan isla markaana si dhib yar ay isugu gudbi karaan cudurka haddaba maayarka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko oo isaguna qayb ka ah ololaha loogu jiro sidii looga hortagi lahaa cudurkaasi coronavirus ayaa shir jirayd oo ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin lagu fulinayo amaradaasi ka soo baxay guddidaasi loo xilsaaray coronavirus-ka ee heer qaran وكان هذا ما يركع عاصمة هرقيس وأرماس كهالليا إلهي إنه بدبادة كتل بينا هدنا وحين أوباهنا هاي إنه أمضاهان كديا جهونو سيد الله سعطان قرن كانوا قرن عطنا وأن لا قنصن وحوي كهرتك إنه سمينا مو يعني داوين تيس مريكان بعد كسانسو وعبادة يو شرمل يو ضمدي وويناي الدنك وقاكو لا يهين شغاله جي محوها دكيا يحدنيه هنا هانتي ساينان دهوفتا أوجارين يضع عاصمتنا يكونوا ليهين إن كدو كالبرد دتك سوماليلاند waxay tahay in koortag la sameeyo koortaga hadii cilaanka la isku maqli waayana waxay noqonaysaa in qofka ixtiraamkii uu lahaa laga kaxeeyo هنا هانتي قضبدي أي صوت شديين وحلو فلين دونا دقمة والبا تليه هذا صليقة قدوميها دقمة ده قدوميها النبتجلية ده إنتاس واحد سمين دونان إن أي سميان يجو أديك سنة يا عيدن كبليسكا يو ضمان شقالوينها دولة دهوسة يجو ديدا النبتجلية ده إن جو آمدي أي صوت شديين قديك قرن ahaa inaan la isugu iman mafruushiyada jaadka iyo kolayada jaadka waxaanu aragnaa imka kolayada jaadka makhaayado oo la wada daba fadhiyo oo halka la wada fadhiyo in qof kasta oo halka fadhiya amba mafruush aqalaha ahaato amba ku banaan ku yaalaha ahaatee in ciidanka bilayska gudoomiyaha degmada nabadgelyada iyagoo la socdo inta fadhidana la soo xidho كوليغانا لجناحه قف كلنا لحده مخايدها شاها waxay iskuuladii oo ka muhiimsan loo fasaxay inaan dadku suuman makhaayad shaaho dhan sida guddidu soo jeedisay in la xidho weey qofku inuu hudheel weyn oo wax ka cunayo soo galo uu ka cuno uu ka baxo inta uu soo galo ka baxo waxa weeyaan waa shayada fasaxa laakiin makhaayad shaaho la isugu imanaya ma jirto waxaanu joojinay suumaadkii guddiga nabadgelyada ee caasimada laakiin waxaanu sameeynaa tii gobolka oo gudoomiyaha gobolka Barasaabku gobolka Maroodijeex hogaaminayo labada taliye qaybeed iyo maayirka taasoo noqon doonta guddi kooban oo degmooyinka ka shaqeynaya u gudbisa awaamirta iyo hawlaha socda waxaan leeyahay dadweynaha waxa muhiim ah in la ismaqlo oo laga tanaasulo waxa weey halka kiis ee dhaca wuxuu gaarsiin karaa 3500 oo kiis buu gaarsiin karaa marka waxa weey inaan ka hortagno si adag looga hortago qofka bini aadmiga sharaf iyo karaamo leeyahay sharaftiisa iyo karaamadiisu waxay ku eeg tahay xayndaabkiisa haddii ay timaado inay ka gudbayso xayndaabkii oo ay gaarsiinayso dadweynihii kala waxa weey karaamada waa laga qaadi doona waxaan leeyahay shacbigayga waan idin jecel lahay waxaanu jecel lahay leeydi ku dagaalamaya qofka la qabanaya loo qabanaya in la ilaaliyo nabadgelyadiina caafimaadkiina iyo sidii aad u sameyn lahaydeen sidii aanu xanuunkaasi ilaahay naga hayaan inuu gaar lahayn waxaan dadweynaha u soo jeedinayaa in goob kasta oo isu imaad aan macquul ahayn la joojiyo waxaan macquul ahayn waxa weey wax kasta oo waxay naftu u bixi karto ka hooseeyo waxaan leeyahay dadweynaha inay u hoggaansanaataan oo aan ka qaadataan
anu waxaan joojiyay gebi ahaanba 4 wiiga soo socda kulankii maalinta dadweynaha taasi oo noqon doonto qofku waxay dhul bixin u socday wixii u socday dhul cabasho ka jirto intaaba waanu hakin waxaan leenahay waxaan u baahanahay kahortag daaweynta awoodeenu weeyartay waxaan leeyahay shacbigu kahortagii hala qaataan mas'uuliyiintooda gudida qaran ee loo magacaabay iyo gudi gobol iyo degmaba waxaan leeyahay dadweynaha inaan ka wada qayb qaadataan baynu u baahanahay in hawshaasi ay sida ay nooga fisheen u baahanahay waxaan ku sameyn doonaa ololayaal ama nadaafad ha haato amba makhaayadaha dibadda ee la fadhiyo ee wadooyinka shaariciyada Abdulqaadir Codey, Hoon Cable TV, Hargeysa.